بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa ogbaad health cooking kusoo dhawaada maanta waxaanu sameysanaynaa maanta digirta tan maxaa la yiraahdaa Soomaalida waxa u taqaanaa faasuuliyad way dhahaan laakiin waa digir inta la kariyay haddana yaanyo iyo wax noocaas lagu daray haddana daasadaan lagu soo xiray wax kastoo kale daasada lagu xiro ama waxyaalaha kan raaga lagu daro caafimaad ma leh laakiin digirta tan iyadoo sideeda baan sameysanaynaa oo organic ah waana waa noocan baa laga sameeyaa laga sameeyaa in hadda saa girin inta muujidan markii la kariyo saana u ekaanaysaa haddii la kariyo gaduudkaasay noqonaysaa markii la kariyo ilaa qadartiis saasay noqonaysaa ani waa baaray ayaga hore tan gadgadan jiray markaa ogaay labada inuu isku mid yihiin tanaan karsaday tan markaa karsatid markaa laba nooc baa loo karsadaa labada nooc marka rabnaa maanta inaan idin tusno insha Allah hadii la idmo hadii la doono waxa la karsadaa markaas 2 kiilo ama 3 kiilo ama 2 kiilo la karsadaa talaagada marka la gashada inta baca yar wax lagu xirxirto iyada ka fiican hilibka iyada ka fiican way caafimaad badan tahay markaan soo karino markaan karinayno aan ku digsi ku shubaynana waa idin tusayna insha Allah hadii la idmo waxa ku fiican tahay habeenkii markii aad yaasiisi xarabtooda kale inaan biyo ku shubtid marka biyo ku shubtidna aad maxaan ku yiraahdaa aad subaxi karsatid iyada xoogaa ku jilcday aad ugu fiican tahay laakiin haddaan dabka saarayna insha Allah hadii la idmo saan inoo noqonaysa arki doontaan hadii la idmo waxaan wax lagu daasadaha walbaatan digirta marka waa soo dhaqan si fiican hadaan u dhaqnayna waa dhaqnay soo ma jeedaan ilaa qadartiis digirta yar oo midda yarta salbukada la yiraahdo ma aha digirta tan digirta waaweyn oo gadgaduudan oo reerkan dhahaan maharagada waaweyn ma ahan maharagada hadda halkan Kenya aad bay u cunaan oo way maraq waxbay ka sameystaan laakiin tana ka macaan waa ku daraynaa digirta waa tana marka biyaha wax noo karkareen baan rabnaa inaan ku daro insha Allah soo dhaco biyana waa ka soo shuba bas marka waa sugaynaa intii noo bislaan insha Allah hadii la idmo ama ka soo karkarayso asxaabta ogbaad digirteeni waa soo karsanay halkaan maharaga laga dhahay waa soo karsanay waatana soo jeedaan bal markii horena green bay ahayd haddana waa taas asaas inta noqotay midda daasadaha ku jirtay iyadoo waa walaalo taas booska hilibkay geli kartaa bahashan aad iyo aad bay maartay wax u leedahay halka kan waxa noo yaala yaanyo adigu 4 xabo xoogaa waaweyn ah iyo basal iyo kabsaro baalka ka noo taala yaanyo iyo kabsaro iyo basal baalka noo taala digirta rabna maraq u sameysana maraqaas marka waa wax aad iyo aad u fiican booska hilibku ku geli karaa subax baa quraacda lagu cuni karaa intii hilib iyo maraq iyo balaayo iyo basbaas iyo dadku kale lahaayeen halka kana waxa ay yaala spice ama xawaashiyo baa yaala meesha tan aan ku soo urursaday meesha tan halkan barbarooni yar ayaa la dhawr dusha inaan kaga darsado waa xawaashiyo aan guriga ku sameystay weeye iyagana waa soo gelinaya oo ay diyaarsan yihiin waa soo gelinaya insha Allah dilayno halkan waa cusbo yara ama milix qofs u yaqaan barbarooni waa basbaas shiidan oo bilbil la dhaho hadaad rabin iska daa ani dad rabaan ugu daraya insha Allah kana waa barbarooniga gadgaduudan oo paprika la yiraahdo barbarooniga gadgaduudka weeye midka kana kan waa root midda waxa halkan inoo yaala waa root shiidan xawaashi waxa weeyaan aad iyo aad u udgoon oo ka kooban mindha ugu yaraan 15 wax oo isku shiiday maalin dhaweed weeye
halka kana waxa weeye sinjibiil budo ah iyo wax yar oo hayl ah budo yar ah oo wax yar oo carf cunada maarta cunno kasta maraq waa lagu darsan karaa haylka shiidan iyo waxaas iyo qorfaha iyo waa lagu darsan karaa dhimale bismillaah asxaabta ugbaad waa soo noqonay soo ma jeedaan marka maasha allah tabaaraka allah digirtaan maraq ka samaysanayna marka maraq hadda basasha aan ku darsanay markaan ka karsanaynaa insha allah marka waxaan rabaa marka inaan sameeyo ama aan idin wax yar inta oo basasha inoo gududanayso baan rabaa inaan digirta iyo caafimaadkeeda aan ka hadalno xoogaa digirta aan ka hadalno waxaan ku darsanaynaa yaanyadan ku darsanaynaa maraq waxaan samaysanaynaa biyo macaan ama maharaga markaan maharaga dhahaan reerka kan سوينا مرة حوالي سوينا waxbaan naga soo dhexgala marka walaal digirtan ma sha Allah tabaaraka Allah waxa ku jira protein waxa ku jira nutrition baa ku jirta oo fitamiino isugu jira fitamiinkaas waxa ugu caansan fitamiinkan la yiraahdo folate-kaas waa wax yaab leh oo maaragtay laamaha haday uu rabaa inay yeeshaan iyo midka uu sahlo weeye minka iyo waxaas iyo kobciisa ka qayb qaataa waliba waxa ku jira baa laba jeer oo maadada la yiraahdo folate kala dhaho baa ku jirta baa meelaha cuntooyinka kala hal xabo oo folate ku jiraan digirta double baa ku jirta baa laba jeer ku jira baa la yiri marka waa wax yaab leh fitamiinada ku jira waxa kamid ah haddii qofku uusan cunooyinka uu cuno aysan ku jirin folate-ka xanuunada ku dhaca waxaa kamid ah baa la yiri qofku wuxuu noqonayaa qof tabar daran buu noqonayaa qof wuxuu noqonayaa iska miir la oo iska waxaan ku radaa iska tabar daran iyo qof wareer laba ku jirta maskaxdiisa ku jira weeye waxaa kaloo kamid ah waxa kan la dhaho heart attack ama wadnaha balbation wadna garaac dad wax iska leeyahay wadna xanuun iyo iska wadna garaac iyo wax noocaas iska leh marka haddii fitamiinkaas maadada folate ka maqan tahay sidaas aad ku garanaysaa waxaa kaloo kamid ah qofku abateed la'aan buu noqonayaa waa abateed la'aan buu noqonayaa qofku cunno buu noqonayaa qof iska wiil iska noqonayaa oo tabar daran irritability qofkan tabar iyo awood midna lahayn buu iska noqonayaa fitamiinada ku jira oo ugu caansan haddana waxaa kamid ah oo digiraha ku jira ama digirta tanba sinki hash la yiraahdo oo aad u fiican maadadaas aan dad yarayo fiican oo macdan ah waxaa kaloo ku jirta ironkaas waa mid dhiigga dadka HB iyo waxaas in kurkiisa baa digiraha ka buuxa meel joogaanba qofkii dhiig la'aan hayso ha cuno umulaha naagaha nuujiya ilmaha yarka ah digirta inay cunaan baa u fiican hadda digirta anaga cunno ma naqaanba haddaan Soomaali nahay waxaa kaloo ku jirta magnesium aad u fiican iyadana murqaha jointiska tiftaafyada waxaa la dhaho meelaha oo carjawaha iska hayaan kala goysay waxaas dhan u fiican maadada la dhaho fiberka la yiraahdo baa ku jirta hadda waxa qoorta wadada waa ku jiraan haddii taa ku jirtana caloosha maxaan ku raadayay wax uga fiican ma leh indhacarada caloosha qashinka ma garatay sunta jirka digirta ka saartaa baa qofkii cuna sun badan jirkiisa ma leh kansarka waa ka hortagtaa waana xanuun baabi'iye anti inflammatory qofka hadduu cuno xataa jirkiisa hadduu qandho iyo xanuun fara badan waa ka ba'aysaa wallahi waa wax yaab leh ilaahay baan ugu talagalay wadna xanuunka iyo stroke dadka qaba digirta inuu cunaan u fiican tahay aad u fiican tahay sababtoo ah
wax fara badan bay ka dajinaysaa oo ilaahay ugu talagalay wax ilaahay ugu talagalay hada waxyaalaha kale oo research-ga lagu sameeyay ama la ogaaday waxaa la ogaaday dadka qaba cholesterol-ka ama waxa kan la yiraahdo beer subaga inay hoos u dhigto dadka cuna hadduu qofku cholesterol qabo wadne xanuun waa khasab ma garat cholesterol iyo wadne xanuun lama kala waayo waa darisba marka cunooyinka hoos u dhiga wadne xanuunka oo dhan cholesterolka oo dhanna hoos u dhigayaan kansarka oo maaragtay waxa la yiraahdo aad uga hortagaa ama dadka kansarka qaba inay cunaan ba u fiican waa ilaahay baa maaragtay umadiisa u sameeyay waxa kamid dadka sokorta qaba inay iyadana sokorta iyo waxa ay hagaajiso oo sokorta maaragtay ay uga hortagto waa kana liver fatty wax la yiraahdo waa hadda waxa idin sheegay beer suuqa liver fatty kale waa isku mid isagana aad bay u yaraysaa qabateed la'aanta way ka hortagtaa mindhicirada si u shaqeeyaan ilaa mindhicirada waa warshad dhan ilaahay sameeyay baadi ayada soo ma jeedan say noo noqotay marka spaces-kan ku darsanaynaa spaces-kan ku darsanaynaa هذا سبيس كان كدر صناي حواشيد كان كدر صناي بدان حواشيد كدر صنانا وحكرنا مرنا درتنا انا كرسنت هاي كان كدر صنانا ما بأباهني هلبة واسكدين كرتا مركه هلبة واسكدين كرتا ما شاء الله تبارك الله وجدي معان بدنا وأضوء هلب كرصدي ما نتحرك مدونة تنا راح أي كدو أنت أنا هلب كرصتي ماله ير إني نوصل كرتان سوق النمر إن شاء الله بس وينات لما تمرت أنا صوت أنا قبص الشهر مركب ساسين إنه كوكر سنتا ديرتيني لما طيب ما كاسة ما شاء الله تبارك الله سحبت أقباد ديرتيني واسوكريني ما أنت هلب إذا وكل بنيت ما شاء الله أو شيء هذا ما أنت واه بنيت به هل كان واحد قصة شوي كان لوش يده كوب كجوز كان لوش يده واحد قصة شوي ديرتاس قريب كم إذا قصة شيء ده بان قصة شوي هلا كان xoogaa yar kabsarana waan ku daray oo aan ku udgiyo marka waxaan rabaa inaan idin tuso bal qaabka anaga marmar aan u sameysano digirta laba nooc baa loo sameeyaa waa tan idin bal insha Allah waa soo shiidaya insha Allah baalka qaylada waa soo shiiday soo maartaan waa soo shiiday ما شاء الله تبارك الله saasay noqotay waxaas macaan bay noqoto saas ah udgoonka ka soo urayana udgoon ka soo ur Ilaah baa loo sheegtaa marka meesha aan ku shubi lahaa baan rabaa inaan soo diyaarsado warwaa waxaan la arag wala maqal subxaanallah tijaabiya bal soo duceeya haday macaan noqoto nana dhiirigeliya دي إلهي إدمه الله وح ما شاء الله تبارك الله فير سأقوم أنت بهاشس مركا فرق سانا بهر كان أبو تلقى لنا أبو الضبالة تلاقينا سأقول قلني لكن صبحي مركا تهي أما هبيك مركا توكله قاضير باسوا قاضي نساء هنا تلاقيها كجرو قاضي wax soo galisa hagelin qaadadiis u daa waa uraya hadii kale saan baa isticmaalsaa ama rootiga marso ama canjeerada markaas marso ama bariis yar gees ka saarso waa wax maaragtay ma sha Allah subhanallahi wakaasa wax macaan way maxaa marka digirtan daasadaha ku jirta
maxay marka ku daraysaa kulay kiimika ku jirta waxaas ay ku dareen waa kiimiko waxaas ay ku dareen waa kiimika la'aan kulay ma kiimika la'aan kulay ma oolaateen daasada kuma jirteen way uri lahaayeen ka walaalayaal soo uga jeedaan asxaabta ugbaad digirteena waa taasa ma sha Allah tabarakallah walada maxaa ku kala garanaysaa tii daasada iyo mid baaquliga waa isku mid kiimika ma leh maxaan ku iraaday waa wax macaan gacantaada ku samaysatay udgoonka haddii inaad la joogtaan baa fiicnaan lahayd asxaabta ugbaad subscribe like share si uu idin dhaafin fiidiyoada cusub aanu soo wadno wax aad iyo aad u fiican baanu soo wadnaa cunadaas oo kiimikadan lahayna diyaarsada aad bay isugu eegeen hadda waa kaas kala garteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.